gabadh Soomaali ah ayaan saaxiib la ahaa anoo gaal ah. gabadha marka wuxuu yiri ayada lafteedu ma fiicnayn qashinka iyo khamrada iyo tumashada waxana saaxiib ku ahay. waan ku faraxsanahay inaad soo booqato channelkeena. fadlan subscribe noo saar si aan u gaarno meel sare oo aan u helno dad wanaagsan adiga kula mid ah. mahadsan. qisay har idin sheego niba Mareykanka niba ii warramay Mareykanka wuxuu yiri maalba waxa dhacday anoo salaad tukanahay masaajid soo taahay oo salaad ku jira ayaa waxa uu soo xidhay buuri ninku cadaan buuri ninka jidkiisa dhan waxba ku sawiran salaadii baan ku jira ninkan gadaal igaga soo xidhay salaada yani yara milixsaday buuri markaas waxa arkay buuri jidkiisa dhan wada doorsoon markaas waxa isii wallahi kuwani kani malaha gaangiski wax dili jiray weey wallahi ku dilu raba salaadii wuxuu waswas baa ku dhameystay iyo baqdin. salaadii markaan ka baxay ninkii si caadi u ila tukaday salaadii ka baxay markaan ka baxano banaanka u baxnay masaajidka weydiiyay buuri reer nin muslim aad u egtahay waxay tahay waxan ninkii wuxuu yiri gaal baan ahaan jiray gabadh Soomaali ah ayaan saaxiib la ahaa anoo gaal ah. gabadha marka wuxuu yiri ayada lafteedu ma fiicnayn qashinka iyo khamrada iyo tumashada waxana saaxiib ku ahay. gabadhii sidaan saa ula soconay saaxiib u ahay ayaan maalinkii daba waxaan idhi buuri aan ku guursado markaas waxay tiri gaal baa tahay oo ima geydin gaal baa tahay oo ima guursan kartid saaxiibnimadiina way ogoshahay guurna ma ogo mala iimaan baa ku jira soo caasiyad baa ahaatee laakiin iimaan baa ku jira waxay tiri ima geydid oo ima guursan kartid. طيب seen kugu guursada soo islaam bay tiri waayahay buuri kaxeeyo cidii islaami lahayd iige way soo kaxaysay bay tiri wadaadku ii keentay wadaadkii baa islaamiyay markuu islaamiyay baan diintii marka sii baaray waxbaan sii akhriyay diintii baan ogaaday buuri xaqiiqada waan fiicnaaday khamradii baan ka baxay sinadii baan ka baxay qashinkii baan ka baxay gabadhii saaxiibnimadeedii waan gooyay waan hagaagay buuri waadiga ay arkahay buuri masaajidkaasaan joogaa waa cibaadaystaa waan fiicnahay laakiin waxa dhacday buuri anoo fiicnaaday oo wadaad noqday oo diintii ku hagaagay ayaan gabadhii oo wali sidii ah yaan u tagay buuri waxaan idhi buuri naasidani diinta igelisay ma ahayn ka soo bax diinta ii sheegtay in galay iyo waxaad haysa isma lehe waxaan ka soo bax aan isguursanay gabadhii wixii way ka soo baxday waan guursaday way xijaabatay ayadoo fiican oo toosan iyo hadda xaas ii tahay buuri carruurna ii dhashay labadooda soo layaab ma leh tani iyada oo khariban bay soo islaamisay iyadana isagii ay islaamisay baa soo hagaajiyay oo ilaahay soo uga dhigay sooba waxa laga yaabaa gabadhaas meesha ilaahay hagaageeda ka bilaabay inay ahayd nin gaala inuu guursado markay diiday halkaas furuhuba ka bilowday Soomaarta furuhu ka bilowday gaal baa tahay ima guursan kartid isaga inuu hagaagana qodobkaas sabab u ahaa iyadu inay hagaagtana isla qodobkaas sabab u ahaa waa meesha markay yiraahdaan ruuxa muslimka si kasta uu caasi u yahay iimaanka ku jira ay lama sahlana marka يعني waxaan ku keenay sawirrada jidka lagu sameeyo marba waxba laga qaban karin waxaan ku yiri war sawirkan maadaama aad islaamtay ma iska goysid wuxuu yiri lacag aad u far badan buu kallifaya mana haysto sidaas daraadeed sidaasaan isaga tukanaya goortii ilaahay wax siiyana waan sameey laakiin hadda waan iska cibaadaysanay wallahu a'lam.